In ka badan 20 magaalo oo ka mid ah dalkan Mareykanka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dibadbaxyo ka dhana muslimiinta. Dibadbaxyadan oo halkudhigoodu ahaa No Sharia Law in America ayaa waxaa soo qaban qaabiyey ururka Active for America oo ka mid ah ururada loo tiriyo islaam nacaybka dalkan. Waxaana goobaha uu ka dhacay ka mid ahaa magaalada St. Paul ee gobolkan Minnesota. Muslimiinta gobolkan ayaa kororka nacaybka iyo dibadbaxyadan walaac ka muujiyey. waxaana Sheekh Cabdisalaan Shariif oo ka mid ah maamulka xarunta Islaamka ee Daarul Hijra uu sheegay in aanay jirin meel laga hirgeliyay shareecada Islaamka oo Mareykanka ka mid ah balse ay tallaabooyinkani salka ku hayaan midabta koor. waxaad moodaa waayahan dambe dadkii cadaanka waxay dareemayaan in laga soo tiro badanayo oo qowmiyaadkii kale ayaa kasii badanaya marka xaggii waxaad moodaa awoodii wadanka iyo hogaamintii u barteen baad moodaa inay ka yara walwalsan yihiin marka ama dhaqaalihii in lagala wareegayo marka waxa arrimahaas salka ku haysa oo cunsurinimo iyo midabta koor iyo arrimahaas salka ku haysa ma aha wax run ah oo ay muslimiintu handadaad ama ay la yimaadeen oo muuqda ma jiraan. kororka dibadbaxyadan ayaa cabsida ugu badan waxaa kala kulma haweenka muslimiinta ah ee xijaabka xirta oo hablabiskoodu uu yahay astaan lagu garto. waxaana marar badan dhacda in dumarka muslimiinta ay handadaan kooxaha xagjirka ee muslimiinta neceb amaba ay dhaawacyo u geystaan. Mayran Cumar waa gabar Soomaaliyeed oo muddo ku nooleed gobolkan. dibadbaxyadan soo badanaya ee muslimiinta ka dhanka ahina waxay ku beereen walwal gooniya iyo xasuus aanay jeclaysan oo ah weerar hadda ka hor loo geystay oo dhaawacna uu ka soo gaaray. weliba iyadoo la leeyahay waxaa tahay argagixiso dalkeenna ka tag. xijaabka waxaan ku xirtaa bin gabdhuhu ku xirtaan muslimiinta ah jiditaanka jiday binki halkaas iga galay anaha naftayda qatar bay gashay mararka qaarkood markaan xasuusto ilina ay soo istaagtay because way xanuun badnayd waan ashahatay gudahan ka ashahatay haddana ilaahay baa badbaadiyay. Mayran xilli kasta oo ay wadada marayso ama ay gurigeeda galayso waa ay foojigan tahay. cabsidanina waa mid ay la wadaagaan hablo badan oo muslima oo qaarkood ay qaadeen tallaabooyin baqdintu ay gundhig u tahay. waxaa jirto kala gabdho iska dhigay xijaabadii ma aha inay yihiin dad xun bal cabsida ninba sibay ku beertaa cabsidoodii waxay tusisay inay maaragtay xijaabadii iska dhigaan marka kolay cabsi weyn baan ka qabnaa oo xoog leh. cabsidu kuma koobna dumarka oo keli ah ee waa mid ay wadaagaan gabi ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkan Mareykanka. haddaba maxaa la gudboon muslimiinta tallaabo noocee ah ayaase loo baahan yahay inay qaadaan si looga hortago walaacan soo badanaya. sida ugu wanaagsan oo looga hortagi karo marka horeysa waa in wanaaga islaamka la muujiyo akhlaaqda islaamka oo tasaamuxa iyo iscafinta naxariista wada noolaanshaha iyo waliba inuu diinta islaamku ay dan ugu jirto yani bulshada iyo dariska iyo meesha qofka muslimku iyo qof anfacaya wadanka inuu yahay marka inaan la cabsanin laakiin xagga isdhexgalka la badiyo. walow ay soo badanayaan kor u dhihista erayada nacaybka iyo falalka ka dhanka muslimiinta haddana waxaa dhinaca kale isa soo taraya kulamo iyo barnaamijyo ay ka wada shaqeeyaan dadka kala diimaha ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo bulshada la isugu soo dhaweynayo nacaybkana looga hortagayo. Maxamuud Mascade VOA Minnesota.